dalka Turkiga markaad joogtid waxyaabo badan baa muhiim ah inaad iska ilaalisid. Cabdirasaaq waxaan ku safraynay wuxuu ahaa baasaboorka Soomaaliland. Inkastoo dadku ay aad ula yaabeen markaan nidhi baasaboorka Soomaaliland baan ku safrnay oo wadankaasi Turkiga iyo in labadaada adin aad iskor saarto sideen caadiga Soomaaliland sideen caadiga iskor saarno waxa uu yaqaanaan qofkaas inuu waxa weeyaan meel kaaga dhacay karaamadiisa meel aad kaga dhacday xanshadeen caadiga inta badan Soomaalidu dhac bay ka siiyaan lama ogola marka Turkiga joogtid qofka soo afkees haya waxaan aragnay dad aad moodo wax aad sanama moodo marka waan u fiirsano waxaan lagu yiri waxaas waa askar sida ay u taagan yihiin qof aan isdhaqaajinayn sida u taagan waxa weeyaan qorigiisa haysta qabriga ilaalinaya marka in badan u fiirsanayay waxaan arkay iyagu marka waxa u haystaan wax maaragtay uskaga oo kala abi ka aaminsan yihiin markii dambe aanu adigu ninkii qancinay waan u sheegnay waxaan waa dabar baan nidhi xaggayga markaan joogno qurux buu ka yahay si weyn dalkaasi waxaa markaa looga tixgeliyaa arrimaha taariikhiga iyo waliba qaabkii kala duwanaa ee Cusmaaniyiintu ay wax u dhisi jireen calanka dalka Turkiga oo kale sida loo qadiriyo waad yaabaysa lama ogola in inagu damala calankeena birqasabadeed banda ku xidhnaa marka Afrikaanka la joogo iyo meelaha Soomaalidaba calankooda laakiin fooqana uu ka dheer yahay culayska iyo miisaanka birtaasi uu ku xidhan yahay Ilaahay buu ku keenayaa kullu macan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij garan ku eegi doono Shucayb Xasan Dheere oo dhinacayga bidix taagan kana mid ah howlwadeenada TV-ga Cable TV dhawaan tagay wadanka Turkiga caasimadiisa Ankara runtii dhacdooyin badan la soo kulmay waxaan ka warshad doonaa sababtii wadanka xagaas uu ku tagay waxyaabaha la kulmay dhacdooyinka la kulmay Shucayb bal waran Cabdirasaaq walaal aad waad mahadsan tahay waxaan safar ugu ambabaxay dalka Turkiga safarkaasi oo markaa ujeedkiisu ahaa bal sidii aan uga qayb gali lahayn shirweyne halkaas in lagu soo casuumay oo ay nagu soo casuumeen telefishinka dawladda ee dalkaasi Turkiga markaa waa shir sanadle ah shirkaasi oo waxa weeyaan dawladda TV-ga dawladda TRT ama TRT markaa afka Turkiga aynu ku nidhaahno uu qabto siyaasiyiinta iyo waliba dadka saameynta ku leh guud ahaan caalamka haddii siyaasiyiin noqoto haddii warbaahinta kala duwan noqoto marka aniga iyo aan saaxiibnahay baa safarka ku baxnay oo martiqaad rasmiya dawladda Turkiga ay nagu soo casuuntay shirweynahaasi TRT World Forum oo sanadkii 2023 marka waa shir saxaafadeed weey waa shir sanadle ah oo waxa weeyaan siyaasiyiinta loo qabto iyo waliba saxaafiyiinta kala duwan marka in koobana saxaafiyiina ayaan ku joognay waliba Soomaali waxaan filayaa labadayada uun baa saxaafiyiinka ahaa marka shirkaas ahaa wuxuu ahaa shir lagaga hadlayo isbedelka cimilada adduunka iyo sidoo kale xalalka bal mushkiladaha ka taagan Afrika madax kala duwan oo Afrikaana ka soo qayb galay madaxweynaha dawladda Turkiga Recep Tayyip Erdogan wasiiro kala duwan oo dalkaasi Turkiga iyo sidoo kale madax kala duwan oo ka yimi caalamka waxa laga hadlayay arrimahaasi Cabdirasaaq oo isbedelka cimilada imika aadka sida weyn looga hadlayo dunida iyo waxa weeyaan sidii khilaafaad xal looga xalin lahaa hadda khilaafaadka ragaadiyay qaaradda Afrika waatay sidee ku soo gashay Turkiga inaad u tagto maxaad ku tagtay baasabooryo Cabdirasaaq waxaan ku safraynay wuxuu ahaa baasaboorka Soomaaliland inkastoo dad kala duwan oo nala soo hadlay inkastoo dadku ay aad ula yaabeen markaan nidhi baasaboorka Soomaaliland baan ku safrnay oo wadankaasi Turkiga iyo wadamadii kala duwanaa sii maraynay transit-ka ku ahayn sida Dubai oo kale ay jeegareynayeen hubinayeen baasaboorka casriga Soomaaliland baan ku tagnay markaa kaasana noo fududeeyay inaan ilaa halkaas si fudud iyo waqti kooban aanu wax weey kaga qayb galo shirkayagii waxaana si weyn halkaasi markaa isagu martiqaadka qayb weyn ka ahaa inaan halka tagno si weyn oo la shaqeeyay Maxamed Xuseen Caydiid oo siyaasi Soomaaliland oo siyaasadeedka barwaaqo ku matala oo halka Turkiga imika muddooyinka ugu dambeeyay joogay waana xogayaa qorsheynta ururkaasi barwaaqo way haddaba Turkiga waa tagtay shirkii uu dhamaaday iyo inta shirku socday Turkiga waa dhex mareysay magaaladaas maxaad la kulantay maxaad aragtay wallahi Cabdirasaaq dalka Turkiga saaxiib waa dal ballaaran runtii taariikhiyan waa dal taariikh weyn caalamka ku leh waxaana halkaasi muddo dheer horta ka talinayay boqortooyada Cusmaaniyiinta oo raad weyn ilaa hadda kaga tagay dalka Turkiga si weyn dalkaasi waxa markaa looga tixgeliyaa arrimaha taariikhiga iyo waliba qaabkii kala duwanaa ee Cusmaaniyiintu ay wax u dhisi jireen masaajidada oo kale imika Istanbul markaan tagnay waa magaalada dalxiis waxyaabaha ugu badan marka dalxiiska sida weyn dadku ay marka Istanbul soo hadal qaado ay xasuusanayaan waxa kamid ah masaajidada caanka ah ee kamid yahay masjidka Blue Mosque iyo sidoo kale
masjidka la yiraahdo isaguna Hagia Sophia fiyo kale ama Hagia Sophia markii hore waxa ahaa kaniisad buu ahaa marka dib bay iyagu u qaabeeyeen markii la furtay magaalada Istanbul oo Constantinople hore loo oran jiray Ismaaliyiintu ay soo galeen ay furteen dib bay u qaabeeyeen masaajid bay ka dhigeen masjidkaasi oo markii hore ahaa kaniisad goobo kala duwan oo markaa dalkan Turkiga waxa jira iyaguna dalxiis ahaan u diyaarsan isla markaana Turkigu waxa weeyaan si weyn u ilaaliyay dadyo kala duwan halkaas marka aad kula kulmaysid magaalada Istanbul waa magaalada ugu quruxda badan leh la oran karaa xagga taariikhiyan marka la eego dadka dalxiisayaasha ugu badanna ay yimaadaan Cabdirasaaq meelaha kale aan booqday intii marka shirka aan tagay kadib aan ka soo baxnay shirka dabadii goobaha kale aan booqday waxa kamid ahaa telefishinka dawladda TRT marka xaruntiisuna Ankara ku taala waa xarun weyn oo aad u cajiib ah waxaana la tusay marka qaybaha kala duwan TV-gaas uu ka kooban yahay sida horeba kugu sheegay dalka waxa si weyn looga ixtiraamaa taariikhaha waxa la arkaysaa markay studio-ga aan tagnay qaybaha kala duwan ninkii dhalinyarada ahaa nin aad u fiican oo muxtarima oo aan aad u salaamayo haduu day daawanayo oo Turkiya ayaa si wacan noo dhaxmariyay goobaha kala duwan Turkiga TV-ga dawladda Turkiga marka goobahan booqday waxa kamid ah studio-yaha qaybaha kala duwan cilmi baarayaashu ay ku sugan yihiin xarunta ugu weyn weeyaan markaas dawladda TV-ga TRT oo ku taala Ankara marka goobo kala duwan baan booqnay oo isla TV-gaas intii wadanka joogtay dhacdooyinkii la yaabka la kulantay maxaa kamid ahaa wallahi dalka Turkigu marka joogto dhacdooyin horta waayay sidoo waxa weeyaan waa meel cajiib ah meeshaas dhaqamada aad u kala duwan tusaale ahaan dalka Turkiga marka joogtid waxyaabo badan baa muhiim ah inaad iska ilaalisid hay'adaha iska ilaalisid waxa kamid ah qaabka imika hadii aad meel fadhidaan oo kale oo dad aad wada socotaan ama aad gaari wada saarantihiin in labadaada adin aad iskor saarto sidii caadiga iskor saarno waxa uu yaqaanaan qofkaas inuu waxa weeyaan meel kaaga dhacay karaamadiisa meel aad kaga dhacday inuu kugu xanaaqo waa marka waa xabka weeyaan ama waa macquulba in labadaada adin aad is saartay wuxuu arkaan aad yeesaysid marka waxyaabahaas kale marka qofka Turkiga tagaya uu iska ilaalinaya xanjada kamida qofka jecelaashto xanjada caadiga inta badan Soomaalidu dhac bay ka siiyaan lama ogola marka Turkiga joogtid qofka soo qaafkees haya ayuu xanjada calaashanaya hatta marka cunto la fadhiyo oo hotel oo kale ama hodeel cuntada soo gashid marka wax cunaysid cuntada waa inaad gacantaada ku yar qarisid marka hadli sidoo kale tusaale ahaan hadii waxa weeyaan laakiin aad iska sheekayso adigoo wax cunaya waxay noqonaysaa in dadkii hoteelka joogay ka yaacaan ama ka kacaan ama ka waswisaan waxyaabo badan oo ay ku kala duwan baa jira sheekayr baa kaaga sheekeynaya cajiib oo na dhaxmartay aniga iyo nin meherad aan ugu tagnay oo Turkiya ninkan saaxiibkana aan ku sheegay Axmed Shimaal baa wari wariya ayaanu habeen israacnay darban soo iibsida meherad baan qalayo dabeedna nin marka Turkiya meherad haystay Istanbul baheed marka wuxuu warniyo anaga kun marka bal dharka noocaasa noo baad dabeedna uu nala sheekaysay dadkan Turkida la yiraahdo wadad aad u furfuran oo jecel inay kula sheekaystaan Ethiopia baatay ma Soomaali baatay marka su'aal lagu diinaya sheeko waxoogaa kadib ninkii markaan sheekaysanay ka bacdi ayuu ninkii saaxiibka ahayn oo ilka casa Axmed Shimaali oo ilka cas soo eegay markaas halka noola faqay aniga nin kale oo afka Turkiga garanayay oo saaxiibna Cabdiraxmaan aad iyo aad baan salaamay waa nin saaxiibka aan ugu soo dhaweeyay halka dabeedna ninkii buu ku dhuniyo ninkan idila socda nin lacag la oo wuxuu eegyahay waa nin aan duruufi ka muuqanay laakiin maxaa ilkaha muxuu isaga hagaajin waayay waxa uska ilkaha kaga yaala sababta isaga hagaajin waayay waa waxay walbaasantini way ilkaha nacasa dabarka iyagu marka waxa u haystaan wax maaragtay uskaga oo kala abi ka aaminsan yihiin markii dambe aanu adigu ninkii qancinay waan u sheegnay waxaan waa dabar baan nidhi xagga iyaga markaan joogno qurux buu ka yahay adigu markii dambe marka aan dibadda soo baxanigay saaxiibkay nin saaxiibna Turkiga joogay oo Cabdiraxmaan la yiraahdo baa yiri warniyo inta badan qofku haduu ilka cas yahay halkan waxa uga yaqaanaanba wax maaragtay uskaga la marka aad iyo aad baan iska ilaalinaa meelaha qaar hatta qosolka waan yareysanaa buu yiri oo dhibaato bay waa dhibaato marka wallahi waxyaalo badan oo hadda qofka tagay waan qaasi cadeysta qofka tagaya haduu awoodo waa inuu qaasi cadeysta hadii kale la dibal waa inuu ugu yaraan qosolka yareysto ama face mask ka xidho marka waxa iska jira waxyaalo dhaqan xagaas ka laakiin marka dambe aad u sheegto wadad aad u fiican oo aan maaragtay kula yaabeen waxyaabahaas kala dhaqan iska noqdeen oo wax iska dabeecad laakiin haddana
waad ku qasban tahay mar haddaad ilka cas tahay ama aad ilkaba laadahay. dhacdooyin runtii adiga kula kulmay si gaara oo maskaxaada ka bixi lama jiran oo aad u dareento marba. wallaahi anigu waxyaabahan dareemay waxaa ka mid ah muwaadinimada, in muwaadinimadu ay tahay shayga keliya ee waxa weeyaan dal ku hormari karo. ciidan waxba ma ilaalin karo, cid kale waxba ma qaban karto, laakiin shacabku dalka Turkiga markaad joogto qof kastaaba isagaa mas-uuliyadda dhulkiisa iska saaraya, sida loo qurxinayo, caagada ha ku tuurin, waxa weeyaan dadku waa wada ciidan. calanka dalka Turkiga oo kale sida loo qadiriyo waad yaabaysa. lama ogola in inagu damala calankeena birqasabadeed baan ku xidhnaa marka Afrikaanka la joogo iyo meelaha Soomaalidaba calankooda, laakiin fooqana uu ka dheer yahay, culayska iyo miisaanka birtaasi uu ku xidhan yahay Ilaahay buu ku keenaya. muwaadinimadu marka dalka Turkiga waa wax si weyn muhiimad weyn la siiyay. waxyaabaha ay soo jeetay bay kamid ahayd marka halkaan tagay dareenkayga sida weyn u bedelay iyo shucuurteedaba. shacab waxaa jira ninkii ka tirin jiray Turkiga loo jeedo Mustafa Kemal Atatürk, waxaa jira qabrigiisa waa la ilaaliyay, halka ma booqatay. cabdirasaaq aad ma hasan tahay. markii Turkiga aan tagnay waxaa jira magaalooyin kala duwan aan booqanay. Istanbul baan tagnay, goobo taariikhi ah ku yaalay. waxaan tagnay magaalada Bursa, iyaduna goobo kala duwan oo taariikhi ah iyo meelo dalxiisba way lahayd. markii dambe waxaan u gudubnay magaalada Ankara oo caasimadda waa dalka Turkiga. marka goobta ugu caansan weeyaan halkaasi uu ku aasan yahay madaxweynihii hore Turkiga Mustafa Kemal Atatürk, oo si weyn dalka looga ixtiraamo, looga qadariyo isaga iyo madaxweynaha Erdogan. inkastoo madaxweynayaal kala duwan oo badan ay u dhaxeeyeen, haddana aad baa loo qadariyaa. waxaa ku tusaysa taasi madaxweynaha geeriyooday qabrigiisa sidii inuu nool yahay ayaa loo ilaaliyaa. askar military ilaalinaysa, askar diyaarsan baa joogta, hab maamuuskiisa u diyaarsan madaxweynaha, oo si weyn oo labisan. meelaha qaar aad saasal anigu marka meesha soo galay, meeshan goobtan aan tagnay waxa weeyaan uu ku aasan yahay qabrigiisa aan soo booqanay, waxaanu aragnay dad aad moodo wax aad sanama moodo. marka waan u fiirsanay, waxaan lagu yiri waxaas waa askar sida ay u taagan yihiin, qof aan isdhaqaajinayn sida u taagan, waxa weeyaan qorigiisa haysta, qabriga ilaalinaya. marka in badan u fiirsanayba waxaan arkay ninkii taagnaa sanadka aan moodayo oo dhaqaaq sameeynaya oo faraha intuu qof soo dhaqaaqo ayar in isaguna meesha ku qoran uu masaajeenayo faraha saas kale ugu duugayo daalkii uu inta badan qoriga hayay awadeed. waxaasina kulay waa wadaniyada iyo siday maaragtay dalkooda iyo madaxweynahoodii hore sida weyn dalkaasi wax ugu qabtay ay ugu ixtiraamayaan ilaa hadda isagoon geeriyooday oo aan nooleynba ay u muuneynayaan, isla markaana ay u ixtiraamayaan meydkiisa. waa tahay gabagabadii shacab runtii waa wadan Turkigu kamid yahay wadamada adduunka ugu taariikhda fiican weyn lagu kamid yahay. dhalinyaro badan baa doonaya inay wadankaas tagaan. maxaa wadanka China ka badan laga qaban karaya ama laga shaqeysan karaya? dalka Turkiga marka hore dhalinyarada kala duwan aan asxaabta ah ee aan halkaa ugu tagay intooda badan waa arday. ardayguna halkaa mudnaanta koobaad buu ku leeyahay dalka Turkiga, oo markiiba card orange la yiraahdo ayaa ardayga la siinaya. kaarka marka wuxuu u fududeynaysaa waxyaalo kala duwan buu fududeynaysaa, sida in waxa weeyaan markuu wax iibsanayo qiimaha laga dhimo oo kale, maadaama ardayda wax baranaya yahay. arday bay dadku u badnaayeen, laakiin qaar shaqooyin kala duwan hayaa way jireen, qaar meherada ku haystaa jira. dalka Turkiga waa dal iska furfuran oo aan xirxirnayn, marka dhalinyaro meherada ku haystaa way jiraan. qaar kale oo warshadaha ka shaqeeya iyaguna way jiraan, warshado kala duwan oo badan baa ku yaala dalkaasi. waa tahay daawadayaal, inta waxaan ku soo afeynaa barnaamijka ku wareysanayna Shucayb Xasan Dheere oo dhawaan tagay wadanka Turkiga, arrimo waxbarasho tagay aqoon kororsiya dhinaca saxaafadda iyo siyaasadda ah. waa anigoo dalmara